بسم الله والحمد لله والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. shirkii IBU-da midowga baarlamaanada Afrika qaybta carabtu maanta labadii duhurnimo dhammaaday waxaana laga soo saaray qaraaro saaka gudoomiyaha golaha shacbiga His Excellency Mohamed Mursal khudbad dheer buu ka jeediyay run ahaantii ahmiyadda ay leedahay qadiyadda Falastiin inay tahay qadiyadda weyn ee shucuubta Carbeed in loo baahan yahay xal caadila in loo helo Falastiin marka qaraarada la soo saaray waxay ku salaysan yihiin soo jeedinihii ay soo jeediyeen gudoomiyaasha baarlamaanka iyo wufuudii ka soo qayb gashay waxa ugu muhiimsanaa in xal cadaalada loo helo Falastiin lana ogolaan karin heshiis aan cadaaladda ka fog taa waa la isku raacay waxa aad iyo aad loogu booriyey Falastiintu inay heshiiyaan oo si dhibaatooyinka waaweyn ee Israa'iil ay samaynayso looga hortago waxa aad iyo aad loogu booriyey dalka Urdun in xil gaara oo horena mas'uul uga ahayd dhulka barakaysan inay xil siyaada iska saarto arrimaha dhulka barakaysan waxa run ahaantii Falastiiniyiinta iyo shacbigaba midowgaas ay midoobayaan si xal waaro oo nabad keena qodobada muhiimka ee ka soo baxay bayaanka gudoomiyaasha baarlamaanka qaybta carabta ee midowga baarlamaanada adduunka waxa weeye qaybaha ugu muhiimsan inaan la aqbali karin heshiis cadaaladda ka fog Falastiiniintuna aysan raalli ka ahayn in xalku ku jiro wada hadallo dhaba si looga hortago hagardaamooyinka Israa'iil waxa lama huraan in Falastiintu ay heshiiyaan oo khilaafkooda xalliyaan afar in boqortooyada Urdun ay mas'uuliyad gaar ah iska saarto goobaha barakaysan ee magaalada Qudus shan waxa ka qaybgalayaasha shirku diideen in la taabto ama meesha laga saaro xaqa ay leeyihiin dadka qaxootiga ee Falastiiniyiinta ee dhulkoodii laga saaray xaqa ay leeyihiin dalkooda inay ku noqdaan in la xaqiijiyo oo ay muhiim tahay waayo malaayiin Falastiiniina ayaa dalkoodii laga saaray xaq ay leeyihiinna waa muhiim gudoomiyaha golaha shacbiga mudane Mohamed Mursal maanta khudbad aad u fiican buu ka jeediyey oo run ahaantii in ay tahay qadiyadda weyn ee maanta ummadda Carbeed hortaalla ay tahay arrinta Falastiin iyo magaalada Qudus oo ah magaalo barakaysan oo runtii islaamka qiimo badan ugu fadhida labada arrimood buu aad u taabtay wuxuuna gudbiyey sida golaha shacbiga iyo baarlamaanka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhani ay u taageersan yihiin Falastiiniyiinta si ay xaqooda u helaan waxayna aad iyo aad uga xun yihiin heshiiskan cadaaladda ka ee la soo jeediyey ee arrimaha Falastiin ku saabsanaa wabillahi tawfiiq